are Arsenal. We're reborn. We love Arsenal. Oh yes, We are Arsenal. no mercy. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسنال سومالي فانس ملك سجوتان يسيكستو مقال كيجا يولبا عد كيجو ويدين سو غاريو channel كان غلا سوتان وا أرسنال اف سي سومالي channel يوتيوب admin وري محمود فانتاستيك ايانا idin la hadlaya hadaba waxaan eegi doonaa kulankan falaaqeynta xiisaha badan ee kooxda Arsenal ay la yeelan doonto kooxda Nottingham Forest. kooxda Arsenal ayaa kulan xiiso badan oo ka tirsan koobkii hore loo oran jiray Carling Cup haatan la yiraahdo Emirates FA Cup ama koobka haatan loo yaqaano Liga Cup soo dhaweydta kooxda Nottingham Forest hadii aan eegno ciyaartoyda kooxaha labada kooxood la heli karo iyo waliba kuwa dhaawacyada kaga maqan Hector Bellerin, Mavropanos, Kieran Tierney iyo Rob Holding ayaa dhamaantood la heli kara kulankan laakiin waxay u baahan tahay inay ku soo bilaaban doonaan kursiga keedka Alexander Lacazette oo waryahanka tooska ee Arsenal haysata marka laga yimaado xidiga Aubameyang ayaa isaguna kulankan dhaawac ku seegi doona isaguna la rajeynayo inuu soo laabto bisha tobnaad haddii Allah uu wadalaymo Kieran Tierney oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Arsenal ayaa oo haatan ka tirsan kooxda Nottingham Forest ayaa isaguna kulankan dhaawac ku seegi doona oo kooxda Nottingham Forest seegi doona sidoo kale xidiga kooxda Nottingham Forest ka tirsan ee lagu magacaabo Michael Hevelli ayaa isaguna wali ku dhibtoonaya inuu taamo buuxda u noqdo kulankan haddii aan eegno kooxaha ama kulamada labadan kooxood markii ugu dambeysay kulmaan Arsenal iyo Nottingham Forest waxa ay ahayd markii kooxda Nottingham Forest 4 gool iyo 2 ay ku xasuuqday kooxda kubadda cagta Arsenal waa Nottingham Forest ayaa Arsenal ku xasuuqday kulan FA Cup ka tirsan 2018-2019 markaasoo Nottingham Forest ay Gunners ka ciribtirtay koobka FA Cup ka loo oran jiray haddaba kooxda macallin Unai Emery ee Gunners ayaa iyaduna wali sheeganaysa dhibaatooyin daafacyada kulanka ugu dambeeyay Aston Villa ay soo muuqatay mar kale in daafaca Arsenal uu yahay sida Ahmed Buskud dhiqa jabhadda waqooyiga London ayaa kaliya hal kulan shabaqooda ilaa shaday 6 kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan kaaga daranta Arsenal ayaa 2 gool ama ka badan qaabilaysay 4 kulan ama 5 kulan ugu dambeysay taasina waxay ku tusaysaa in Arsenal ay tahay daafaceedu mid aad iyo aad u jilicsan oo aan waxba la isaga sheegi karin haddaba waxaan eegi doonaa shaxda laga yaabo in kooxda Arsenal lahay caawa kula soo hortagto kooxda kubadda cagta Nottingham Forest Arsenal ayaa rajeynaysa in saxiixda cusub ee Kieran Tierney uu kooxda u ciyaaro kulankiisa ugu horeeya oo rasmi ah kulanka caawa Nottingham Forest waa hadii macallin Emery uu qaato go'aanka xidigan ugu soo bilaabayo kulankan tobraha Gunners oo Emery ayaa si weyn loo filayaa inuu isbedel weyn ku sameeyo shaxdiisa kulanka caawa ka hor kulanka ay toddobaadka dambe kula ciyaari doonaan maslaxa riyada Old Trafford waa kooxda Manchester United macalinka lagu dhalilo shaxumada ama tatika xumada Emery ayaa haatan muujiyay ogolaanshiisa inuu ciyaarsiyo xidigaha daayarka ee kooxdiisa waxaana la filayaa inuu ciyaarsiyo caawa kulankan xidiga badan oo daayira haddaba wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska Express ayaa saadaaliya shaxda laga yaabo in tobraha Gunners Emery uu kulankan ku soo qayb galo kulanka Carabao Cup loo yaqaan ama League Cup ama Carling Cup hore loo oran jiray
waxaa shaxda golhayaha la siiyey golhayaha wacdaraha dhiga Yurub Liga ee kulankii Frankfurt waa xidiga Martinez daafaca bidix waxaa caawa laga yaabaa ama u badan tahay in lagu bilaabo Kieran Tierney saxiixa dhiga cusub ee kooxda Arsenal daafaca wadnaha dhexe waa Rob Holding oo laga yaabo in kulankiisa ugu horeeyo muddo badan kadib uu Arsenal caawa ka soo muuqdo daafaca dhexe ama daafaca wadnaha dhexe waxaa sidoo kale lagu wehelin doonaa xidiga khalkhalka badan laakiin kulankii Yurub Liga wacdaraha muujiyay Mustafi dhanka daafaca midig ee weerarka waxaa laga yaabaa in caaway uu ku soo shaqo tago xidiga Chambers kaas oo wacdara dhigay kulankii horyaalka Aston Villa maadaama uu dhaliyay goolka barbaraha ee kooxda khadka dhexe waxaa laga yaabaa ama u badan tahay caawa inuu macallin Emery ku soo galo xidiga Joy Willock lagu magacaabo iyo waliba Lucas Torreira dhanka weerarka caawa waxaa baalaha isqabsan doona ama sida madafiicda uu hogaamin doona xidiga da'da yar Smith Rowe xidiga lagu magacaabo Burton iyo waliba xidiga Nelson ama Rice Nelson lagu magacaabo dhanka weerarka tooska caawa waxaa loo day doonaa Gabriel Martinelli hadaba kulankan geeska Afrika waxa laga daawan doonaa haduu Allah wadaleedmo 10 oo rubi dhiman ama 9:45 ama 21:45 hadba sida uu taqaan saaxiibe barnaamijkii aan ku eegayna falaaqinta kulanka xiisaha badan Arsenal caawa la ciyaar doonto kooxda Nottingham Forest ee koobka Carabao Cup ama League Cup ama hore loo oran jiray Carling Cup waanaga tabintu waanigo Maxamuud Cabdi Saciid Fantastic waa admin wariye Maxamuud Fantastic channelkuna waa Arsenal Somali Fans channel YouTube waa dhammaan adminada halkan oo idin leh salaamu min Allah alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh